كدواد لباتن دقيقة وأنا حافظ إذا كم أغنى كدب يعني سيري ديب وقول لابو وودوين اسكو وضا ميدا داد اسكو وضا إيق يقري عن كلا دوانين جيد كان كايمي إيه كان كسعودو إيه كوا بالله إيقا كلا حنايا midkoodna ma laha calaamado iyo astaamo lagu kala sooco daqiiqad kastaba waxaan sii dareemayaa inaan badahay cabsiduna way igu sii badanaysaa daymada aqal kasta kaayagii buu ila ekaadaa uu noqon waayaa anna waan ka noqdaa waxaan dhex meeraysanayaa ku dhawaad 5,000 oo qoys oo hal mar meel la wada dejiyay hoygooduna yahay taandhooyin wada cad oo taandha aanay taandha ka duwanayn show barwaaqada iyo ladnaanta intay dadku ku sugan yihiin sidiinan oo kale ayay kala muuqaal duwan yihiin dadka marka aan ka hadlayaa waa isku duruuf ku sugan nolosha halkii ugu hooseysay dad maqaarku ku wada dhagay dhabanadooda guteen dhaforaduna soo wada baxeen oo kii ku dhaafay ku hor socda hugooda iyo hargahooda aanad kala garanayn codkun baase lagu kala aqoonsan karaayay wana kaan miciinsaday anigoo ku dhawaaqaya hooyooy 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 intee buu saqayla wadi karaa ilmo yar oo daalan oo haraadan oo gaajoonaya oo ambadihi si kasta way dadku u diifaysan yihiin naxariistu kama dhammaatee kulba qof baa igu soo baydha halkee buusay geyn qofaan hebelnimo ina hebelnimo iyo jaarnimo midnaba aan ii garanayn in badan oo iyaga ka mid ahi waxaabay isku dayeen inay guryahooga geeyaan balse aanaan ku xasilayn joogitaanka hooy aan hooyaday joogin baadigoobkii taandhadayadii iyo aqalkaygii ku aadanaa baan iska sii wati sidaalay carruurnimadaasi nugaylehe tamarteedii waxay ku soo ururtay oohin waxaan si farxad iskala garan waayay goor maqrib ku siman markii aan maqlay codka dhawaaqa hooyaday oo leh war xasanow igu dhagtay durbadiiba gacantay qabatay oo xaafadayeedii i geysay hooye waa hooyinoo inaan haraadanahay ogeyde biyaygu qabatay halkaasina waa halkan ku garaadaystay dugsigana ka bilaabay wana xeradii qaxootigii loo oran jiray dulcad dadku xilligaa waxay ahaayeen isku duruuf aan kala lahayn taajir iyo faqiir oo dhammaantood kuyuu boorasho gala weelka ay wax ku cunaan wuxuu ahaa caag waxa ay cunaanna waxay ahaayeen qabadi iyo garaax saliid leh taasi oo bishiiba hal mar ay safaf dhaadheer u geli jireen maalmaha qaadashada raashinka ay u xaadirayaan ciid ugamay duwanayn waqtiga adag laga soo gudub la soo dhaafiyo waa nabad dalkii dib loogu soo guriye noqoy iskuuladii dib loo bilow haddana markii iskuulada dib loo bilaabay ma jirin bal caddan ay xidhan tihiin basaskan aad ku rawaxasaan iyo tilefoonadan casriga aad sidataan waxaan qabaa jiilkii aan ka midka ahaa inay ka nolol wanaagsan tihiin ood ka nasiib badan tihiin ood ka mustaqbal fiican tihiin waxaan sheekadaasi xasuusteeda idinku soo qaaday inaan xasuusiyo halka laga yimay quruxdan shacnigan sharaftan wajiyadiina ka muuqday ilaahay ka sakow waxa suuro geliyay dadkiina ka mid ah idinkana waxa la idinka doonayaa inaad jiilasha idinka dambeeya aw horseedaan nololtiina ka dooroon wana mas'uuliyad idin saaran oo idin sugaysa waxaan idinku baraarujinayaa inaad waqtiga qiimihiisa garataan oo intaad da'yartiin aad ka faa'iidaysataan si markaad gabowdaan aydaan qoomamo u heshin haddaad maqasho maal qabeen aqoon-yahan caalim ama cid kastoo nolosha horumar iyo tadawar ka samaysay iskama noqon waxa ay noqdeen waxa ay ku noqdeen ka faa'iidaysiga waqtiga iyo adeegsiga maskaxda maalmo kooban
waad ka faa'iidaysatay xusuustoodu waxay kuu dhashaa farxad halka maalmo kale oo kooban oo waqtigaaga ka mid ah oo kaa dayacmay xusuustoodu ku dhasho murugo iyo qoomamo sida xoolaha xero loogu ilaaliyo ee hantida qasnad ama baan loogu ilaaliyo ee sumcadda iyo sharafta dhowrsooni iyo dhaqan wanaagsan loogu ilaaliyo waqtigiina ku ilaaliya dadaal oo siday biyuhu bilaa midab bilaa ur bilaa dhadhan u yihiin noloshu yaana idinka noqon bilaa tacab iyo bilaa dadaal